baarlama fahamkayga aniga waxa weeyaan golo shacab ama xarun shacab yani maadaama dadka oo dhan talada inta la ururiyo meel la fadhiisiyo la isugu geeyo aan yani loo wada gaarsiin karin waa in la helaa dad matalayaal ah oo dadka matala aqalka sare fahamkayga aqalka sare waxa weeyaan maadaama dalku federaal yahay maamul goboleedka iyo jiraan isteediyo ka madax bannaan dowladda federaalka laakiin la shaqeeya inay matalaan oo ay noqdaan golihii sida saxda ah u matalay maamul goboleedyada haddii kale Puntland xubnaha ka yimaada waxaa looga maarmi karay inay baahiyaha maamulkaas Puntland uu qabo inuu soo marsiiyo golaha aqalka sare fahamkayga galbeedka maadaama golihii shacabku shaqooyinkii kala shuruuc dejinta ay yahay isagana wuxuu qayb ka yahay ansixintooda iyo sidoo kale inuu wixii ka khaldan oo ka hufo oo ka saaro aan gobolkaygu matalaad kuma laha dawladda yani lagama hadlayo dad reer ahaan meesha ka soo jeeda laakiin iyadoo goboladu ay dhibka wada qabaan Soomaaliyeed oo aan dadku dad matalo sax ka yimaada aan jirin haddana aniga dadka oo matala even kama yimaadaan ba isimkayga iyo dadka aniga caadiga ah matala kama yimaadaan waxa ka yimaadaan maamulo oo igu wareegsan oo inta badan iyaguna wixii iyaga dantooda ka shaqeyn kara ama madaxda hadda kala Puntland oo kala hadda aan xildhibaanada ii yimid dawaa xildhibaanada deegaanka ka soo jeeda dadka in matala si sax ah